Saciida Cali baa la dhahaa 25 sano ayaan deganahay qaxootigan businesskayga waxa weeye buluketiyan iska sameystaa dhalinyaro fara badan waana ku badanahay meesha dhalinyaro fara badan baana ku sameystaan marka waxa waaye waxaan maxal jiray ka raadsanaa biilka anaga ka raadsanaa waayo shaqo kale oo aan qabto aan garanayo malahan buluketigaas baan iska sameystaa marka maxal jiray biilkayga iyo business in bay xalaasan ka dhigtaa marka maxal jiray waxaan sameeyaa buluketiga sida marka alla markay iigu badan tahay aan ka helno ama shaqada si ay noogu kala socotabo ama lacag aan ka helno dadka dadweynahaas aan ka iibsanayo wixii naga soo dalbado ugu yaraan 200 baan maalintii sameynaa ugu badnaana 300 ilaa 400 aan sameynaa aan u soo laabano kuwaas bal waxaad iga rantaa markii hore maxaa kugu dhaliyay in shaqadan aad qabato adiga waxa igu dhaliyay wax kale aan qabto ma garanaynin ana business kale aan haystay malahan biil baan ka raadsanayay dhibaatana waxa soo dhanba ii keentay waayo ragga qaban jiray haddana dumarka inaan maxaa anaga raggaasita aan wax la soo saaran kara ayaan isku dayay laakiin shaqadan waa adag tahay aad qabanayso waa shaqo rag oo waxay u baahan tahay muruq iyo xoog badan u baahan tahay adigana waxa tahay ruux dumar sidee isku keentay sidee u maaraysaa waxaan u maareeyaa sidii ragga marka hore ma aan aqoonin sidii loo sameeyo laakiin se ragga oo sameynaya markay aan arkay waan iskaan ayaga oo la shaqeynaa markii dambana caadi ayaan aniga ayaa la qabsaday bulshada adiga sidee ku arkaan markaad qabanayso shaqooyin noocan oo kale ah bulshada dadna xoogeeda xamaalataa bay dhahan dadna way igu aad bay iiga naxaan oo dadna maxal jiray aad bay ii qeybiyaan oo iyagana way ila yaabaan oo waxay dhahaan naagtan say ragga sidee wax u qabanayaan say wax ugu qaban kartaa anigana hadeedana igu kaliftay oo maxal jiray inaan biil ka soo saarto aan caruurta ku biishaan ugu talagalay duruufta taalla xariiqa qaxootiga aad iyo aad ay u adag tahay shakhsi ahaan waxaa tahay ruux dumar ah marka shaqadan iyo shaqadii xaafadda oo kale sidee iskugu keentaa waan isku keenayo shaqada xaafadda waxa waaye buluketiga waxa waaye xilli kasta elisay looma soo kala hayo caruurta marka iyo ciidda markaan shaqada u soo qabsado ayaan buluketiga imaanaya marka waan sameysanaya markaan sameysto casarka markay tahayna waan iska gadoomaa wixii aan ka helo markaas sita hadii la iga gato wixii la iga gato ayaan hadana ku soo adeegtaa oo saas banteerka ku maamusha waxaad ku nooshahay xarada qaxootiga ee dahab marka adiga sidee isku aragtaa misleedahay meeshan hadda ka shaqeynayso kale noloshaada waa ka soo dhacsan kartaa ama mustaqbal waa ka samaysan kartaa haddaan isku dayaa oo shaqada aan saas aan u qabsanayo hadii waliba hor ay ila sii socoto mustaqbal waan ka qabsan karaa sidee uga qabsan kartaa bal noo faahfaahi waxaan uga qabsan karaa horta wax kastaba ka aakiba had in laga gato hadii maxal jiray maxal qandaraas qof baan ku imaanayo guri kumbudan rabaabo ku dhahayo guriga kumbudkaad ka gadanaysaa hadda ka gadato lacagta ayada qaybna maxal jiray biil baad ka dhiganaysaa wax kalena waad dhiganaysaa marka mustaqbal waa laga dhigan karaa hadii loo jeedo meeshan hadda aan joogno adiga ma shaqaala ka tahay mise mulkiilihii meeshan lahaayo waxaa iskula jirtaa mulkiilinimo iyo shaqaalanimo labadaba waa iskula jiraa labadaba waan iskula jiraayo marna shaqaalanimona waan ahayd marna maxal jiray anaa wax ka raadsado oo milkiilinimada dhinac baan kaga jiraa keligay madaxii shaqadan waxay ku kooban tahay oo kaliya sida Soomaalida ay u aragtaba waa shaqo rag marka misleedahay dumar sidoo kale wad ku boorin kartaayo si ay shaqadan ayagana uga soo qayb qaataan waan ku wacyi gelin karaa sidee wacyi gelin ma jiraan kuwa ku yimaadeen oo ku dhahay shaqadan aan u baahanahay oo makaala soo qayb gali karna way jirtaa kuwa ii imaadeen way jirtaa oo shaqadan inta hadaan kaala soo qayb galno wax ma naga qaban kartaa way dhaheen waa idin kula qabanaya hadiina garanaynin hataa anaa idin tusaayo anaana idin barayaan ku iri ayagana way iga ogolaadeen goorta ii imaan doonaan nama ogi kuwan hadda kula shaqeeyo waa kaliya dumarka ah marka sidee u wada shaqeysaan oo marmar qaar mataqaanay ay kugu riixaan dhinacaas ay ku dhahan dumar ay tahay annaga shaqadan qabanayno waxa way ugu riixaan waayo ayaga xagga ragga ayaga way isfigsanayaan anna dumar baan ahay dumarna weligeed waa la riixi jiray Soomaa
markaas maxaa dareentaa adiga markaad isdhaahdo raggii way ku riixayaan oo waxay kugu yeesayaan dumarnimadaada, maxaad dareentaa? wallaahi aadaan iskaga qiiroodaa, laakiin waxbana umana arko, waayo nin xooggiisa isbaray waxna ma waayo. marka maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed oo leh waxaa jiro shaqooyinka la qabto way u kala soocan yihiin, dad badan baa aaminsan sidaas, maxaad dhihi lahayd dadka? wallaahi dadkaas waxaan dhihi lahaa nin walba maxaa la dhihi jiray xooggiisa xaq xamaasho, ninkii maxaa la dhihi jiray business wax kastaba ka kala dhiganayo, kii xooggiisa xamaalanayo oo bulkeeti rabana wuu samaysan karaa, ninkii qoryo guranayana wuu guran karaa, nin walbaba nin meel buu ku aadaa. marka waxaa waaye nin walbaba inaad waxaa waaye qaxootiganita waxa lagu noolyahay waa aragtay, galey yaraa la qaadanaya, hal yaroo buraa la qaadanaya, mar waa la iska jaraya. marka waxaasan maxaa la dhihi jiray businesska meesha biilka iyo waxyaalo lacag iyo meesha sitan wax ka raadsadaa. hadda micnaha waxaa waaye wax shaqo ay dadku ay kala leeyihiin ma jirto. hadday noqon lahayd wax la dhihi karo shaqadan ragga iskala iyo shaqadan naagaha iskale waxaa leeyahay ma kala jirtaad leedahay miya? ha wax ilaahay abuurtoo jira malaha. kii gaari nin baa marka hore gaari wadi jiray, hadda dumar baa wadaayo. qoryo waxaa soo guri jiray raggaa soo guri jiray, dumarka hadda dhabarkooda kusoo gurana ama kareeto kusoo guran. kareeto naagna way wadaa, ninna wuu wadaa. maxaa la dhihi jiray qori biyaha arooritaanka hadii la dhaho raggana wuu dhaamiyaa, naagahana way dhaamiyaan. hadda sidii ragga ay wax u qaban jireen hadda dumarka ayaa hadda wax u qabanayo. marka waxa waaye dumarka laftigeeda waxa way business way samaysan kartaa haddii waxay alla la garab galo. burburkii dowladda Soomaaliya see u dhacday, shaqadii ama wax soo saarkii qoyska wuxuu kusoo koobmay oo keliya haweenkii, raggiina waa shaqo la-aan oo guryaha fadhiyaan. bal arrinkaas ka waran, marka ma is leedahay dumarkii waxaa ku qasbay inay shaqadii ragga qabtaan shaqo la-aan darteed awgeed, mise waxaad is leedahay waa raggii oo gabay shaqadoodii? maya, shaqo la-aanta unbaa maxaa la dhihi jiray ragga kusoo koobay ma ogiye, oo dumarka hadda shaqada u qabanayaan, waayo raggii ayaga dhanba waxay wada noqdeen dad wada mashaqaystayaal ayay iska noqdeen. waxa ma garanayno raggii waxa ku dhacay makase nin walba waxaa laga yaabaa shaqo inuu qaban jiray, ama arday wiil baa wuxuu soo ahaa ardaynimadiisii wuu ku guuleystay, jaamacad buu galay, jaamacadii uu galay baa waxaa laga yaabaa shaqadii uu rabay inuu waayey, inuu guriga iska fariisto ayaa noqotay, oo naagta uu guursaday ee naagta haddana ay biil raadiso, ilmahana iyada ay biil u raadiso. magacayga waxaa la yidhaha Maryam Cali Xasan, waxaan ka howlgalaa dugsiga hoose ee degmada Kaaraan Al Rayaan. waxaan u dhigaa dugsiga fasalka shanaad. waxaan isku dayaa mar walba inaan ardayda gabdhaha iyo wiilasha aan fahamsiiyo sidii nolosha iyo Soomaalinimada iyo dadka ay wax u taraan. marka maadaama aad sheegtay inaad dugsi macallin ka tahay hoose dhexe ee Kaaraan, dugsiga markaad fiiriso dumarka macallimiinta iyo ragga yaa ku badan? ragga ku badan, laakiin ana qaasad ahaan waxaan jeclahay mar walba in ragga aan la tartamo, waxay qabanayaan ka badan aan qabto, oo aniga iyaga tartan naga dhaxay maadaama oo haweenka oo ku yar yahay. waxaan jeclahay mar walba meesha rag ka baxo inaan gabar keeno ee macallinimada aan gabdhaha iyo wiilasha inaan same ka dhigo, oo xagga oo ragga aad kula tartantaan, oo kula tartanna gabdhaha maadaama ay wax yaqaanaan ay guryaha fadhiyaan inay soo kacaan ee macallinimada soo doonto, maadaama gabdho badan oo jaamacada ka baxay oo shaqeynaa jiro. wiilasha guryaha laga soo wadaa waa wiil ninkii oo iskoolka lahaa baa wadanaya, laakiin gabar maskiin waay. waxaan jeclahay markasta inaan gabdhaha garab ka qabto oon keeno meelaha macallinimada si ay u fahmaan inay wax qabsan karaan. waxaa la yidhaahdaa gabdhuhu inta badan shaqooyinka ragga ay qabtaan oo kale ma qaban karaan, taa ma dhici kartaa? wax dhici kara ma jiro, hooyo dheedheel mahan. gabar waxay qabato ragga ma qaban kariyo. gabar wax walbay qabanay, laamigaasi xaaqay, ilmiya wax baray, raashinay karin, macallin waaye, afraad waxay qabato nin ma qaban kari, waa la wada ogyahay. naag waxay qabato nin inuu qaban karin, ummadda Soomaaliya dhan waa wada ogtahay. hooyaa wadanka badbaadsaday, hoose hooyo ahaan lahayn wax la qaban lahaa ma jirin. oo waxaa leedahay raggu dumarku way xaqirayaan oo ayaga hoos u dhigaya maahane, raggu waxyaabaha ay qabtaan dumarku way qaban karaan aa leedahay?
si fiican hadda waxaa wadanka badbaadiyay hooya u badan haddaysan hooyo wax qaban lahayn hooyadii naagaa hilib gaday suuqaasi aaday gabaraa jaad gaday oo caruurta ku korisay hooya muxuu ahaa maqaayad shiday hooya coos gaday hooya biyo wareejisay dhibaatada wadankan laha 22 sano dhibaatada ka dhacday hooya badbaadisay ragga aago ku jira waxba bahaynin caruurta badbaaday oo la badbaadiyay dagaal ku jireen dhibaato qaasatan waxa wadanka qasan rag waay hay markaad fiiriso xagga waxbarashada oo kale gabdhaha iyo wiilasha yaa ku badan hadda والله إنك استقبل ويل بدناجر لك هذا قبلها ويل له سما واي هو والبحي أوقات إنه وحبرشة قيمة لا ده قبله ولا كعية هاي يا كعية وحكي هو ينكود ما دام أركان إن مجالس بدل يمد أو تمد نبض تمد محو هاي بدل بدن إنه بتقليد إيات وفي عناته هو والبحي فهمت إنه وحبرشة الشيء قالتها ما دام النبض بتبادس عرورت دمر كو كلام مركي لقى هذا لا يو كلام هذا واحد شيء إني shaqooyinka inta badan wadanka ayagu ay badbaadiyeen oo qabteen oo ay ragga ka horeeyeen haddana markaad fiiriso shaqooyinka way ku yar yihiin maxaa keenay waa dareemi kartaa waxaan u aragnaa anaka inay ragga xoogaa ee garabka nagu riixayaan hay aqoonayso idinku riixin aqoon nagu ma riixayaan waa waxyaalo badan waa naag waa gurigeed ay fadhiisataa lagu leeyahay hooyada wadanka badbaadis waqtiga aaga ku jirta oosan adiga soo xasuusan hadda ay ku soo banaan bixisay ee ilmihii soo korisay haddana leeyahay guriga iska fadhiiso hay waxbarashadoo kale haweenku markaad fiiriso aad bay maaragtay ugu badan yihiin dugsiyada haddana kama muuqdaan shaqooyinka maxaa keena inay maaragtay shaqooyinka ka muuqan waayaan wallahi waxaa keenay gabadha wiilka waa nin rag meelaha galgala gabadhu waa maskiin waa indha kubiyoolay haday dad u tagto liiraad bari imaam in kasta oo gabadhu haday shaqo raadsatay niman oo wadankan waa fahmi waa dareemi kartaa ninka shaqo u raadsatay tira shaqo isii waxyaalo kale ku dayaa gabadha inta xishootayda jaamacad bartay guriga gadaal ugu naqanay waxay ugu naqanayso waxyaalo badan oo wadankan la ogaaday oo dib loo raacay in gabadha de wax bartay ninka u tagta ama shuqaas ama si kale wax ugu dayaas leh shaqo weydiisato waxa moral ka riday gabdhaha ka dilayna waa arimahaas ka koob oo raggu macnaha waxa leedahay xuquuqda haweenka ma ilaaliya ma waa ku tuntaan marka hadda waxbarashada iyo raggo kale iyo in ragga aad la tartantaan adiga hadda waxaad sheegtay inaad ragga waxyaabaha ay qabtaan oo kale oo xagga macalinimada aad iskula jirtaan dugsiga aad ka badan aad qabatid oo kale aad isku daydid si fiican waxyaalo badan qabaa ilmihii waxaan dareemi karaa aan hooyan ahay waxaan dareemaa cunuga maanta fasalkii yimaado wajigiisa cunuga maanta oo wajigiisa fircoon iyo kii barbaleen haysto waa dareemi karaa waan weydiiyaa maxaa kugu dhac hooy maxaa maanta dareemaysa laakiin asaga nin rag waa waxba ma ogo cunug wariya casharka akhriya ana cunuga qandhada haysta xataa indhihiisan ka dareemaa ana maanta maxaa kugu soo saaciday oo si ma fiirina doobada xanuun fasaxa kaniiniya siina hayo hooy guriga aadan leh cunuga maanta caloosha laga hayo oo dareemaya inuu jirin yahay waxaan leeyahay waa ii sheeganaa hooya hadda intay ku xanuunaysa daan macalmadiisa hooyadiisa wuu ii sheegaa laakiin nin rag af uma sheeganayso inkastoo asagana aaba yahay laakiin kama muuqdaba laakiin hablaha yaryarka iyo wiilasha yaa hadda dugsiga yaa ku badan okay haddii aan gabdhaha iyo wiilasha wallahi haddaan isla mid dhigno gabdhaha iyo wiilasha inkastoo wiilasha xoogaa yar ay kala badan yihiin aan jeclahay ay ku badan yihiin haddana si isku mid ah wax u bartaa si isku mid ah wiilka waa dhal gabadhan waa dhal waan jeclahay inkastoo nimanka aysan dadka saas iskula mid dhigin laakiin anaga aad aan hooyana hooyadu marka wax badan ay dareemaysaa miya si fiican raggoo kale hadda maxaa see loo fahamsiin karaa oo inay haweenku xuquuq leeyihiin shaqooyin qaban karaan nolosha qayb ka yihiin see in badan oo kamid Soomaalida ragga Soomaalida loo fahamsiin karaa wallahi in wacyigelin badan loo soo biyo waa mid arin aad u culus waa mid la fahamsiin kara maaha naagta maxay ogtaa guriga fadhiistaa lagu leeyahay waxyaalo badan dadkan wacyigelin oo ragga u baahan yihiin maadaama ay gabdhuhu ay inta wax barteen ay guriga fadhiyaan gabdhihii waa in iyagana wacyigelin loo soo inay soo baxaan ay shaqaystaan gabdhaha wax barto kale gabdhaha wax bartay gabdhaha wax baran xataa inay guriga ka soo baxaan waxbarashada qasbiyan maahan inay aqoon inay bartaan waa inay farsamo ilmahooda bari ay ku shaqaysan karaan ee subsan sida harqaamanka oo kale inay farsamo bartaan inay harqaamanka tolaan inay muxuu caaw tolaan inay hunguri karis bartaan wadankan waa hay'ado badan ka shaqeeyno NGO-yo badan inay waxyaalahaas raadsadaan ay gabdhihii oo wax garabka laga qabto gabdhaha hooyooyinka wax aan aqoonin inay farsamooyinkaas ay doontaan waay haddaysan guriga ay ku baahin oo la ogeyn ee dhaqdhaqaaq lahayn dhibkeeda leedahay hooyo inay dhaqdhaqaaqdo waay inkastoo hooyada dhaqdhaqaaq oo badan tahay tiir jahliga inaan jahliga ka bixino oo wax barno magacayga waa Khaliif Xasan Ciise yaradu waayahan dambe waxaa muuqanaysa in waxbarashadu kordhayso
ganacsigu inuu xor noqonayo oo noqonayo ganacsi cid walba ay ka ganacsato cid allaale ciddii heli karta dhinaca shaqada in shaqa abuurku waddanka si guud ahaaneed uusan badnayn laakiin in shaqooyinkaas oo dhani ay dhallinyaradu wax baratay ay aad u soo abalay gareeyaan meelaha ay isleeyihiin shaqooyin baa ka heli kartaan shirkadaha oo kale waa gartay bal dhinaca ganacsiga oo kale hadda suuqa haddaan fiirino shaqooyin ragga u gaarka ama dumarka u gaarka ma jiraan shaqooyinka suuqu almost haddaad si fiican u fiiriso oo shaqooyinku waa dharka oo kale ragga iyo dumarku waa ka ganacsadaan khudaaraha oo kale waa lagu wada jiraa waa laga yaabaa waxyaala yaryar lagu kala duwanaan karo sida hilibyada ama yaanyooyinka iyo waxyaalaha miismiiso ama hilibka in ay ku kala duwanaan karaan way ku kala duwan yihiin xataa hilibka xataa waa u malaynaya labadaba gadi karaan dumarku arigay qalaan ragguna geela oo kale bay bireeyaan arrintaa marka hilibka ah kaa waaweyn weynaan iyo yaraan loogu kala duwanaada laakiin waa laga siman yahay caanaha oo kale dumarka kaliya iibiya maya meelaha qaybtood haddaa fiirsato biibitooyinka oo kale iyo caano habaysan oo supermarketyada caano la caagadeeyey oo ragadayo marka waa loo siman yahay kaas iyadana waa gartay bal dhinaca xafiisyada iyo shaqada iyo ganacsatada shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta goobaha caafimaadka iyagana haddii aad jalleecdo maxaad ku tilmaami lahayd shaqooyinka qoloba wax u badnaato laakiin xafiisyada si caama waa looga wada shaqeeya waa laga yaabaa waxyaabaha nersinka la xiriira oo kale in dumarku badan yihiin waxyaabaha xafiisyada oo kale waa loo wada siman yahay oo dumar badan oo hadeer waa aragtay malaynaya sida haday loo sheego kale xawaaladaha oo kale rag iyo dumar baa ka shaqeeyaan bangiyada waa wada joogaan waxaa laga yaabaa kaliya inay ku kala duwanaan karaan waxyaaba ku kala badnan karaan sida nersinka oo kale dumarka u badan oo shaqadaas iyaga si khaas ugu badan tahay waa gartay dhinaca waxbarashada marka inay gabadhu baran noqoto maamulo iskuul inay noqoto bal hawlaha ka war Niger ahaan hadda odaygii dhalaa gabdho iyo wiilal labadaba si siman ayay iskoolaadkii u geeyaan haddaa fiiriso laakiin jaamacadaha iyo dugsiyada sare way ku kala badan yihiin baridda in iyagu ay wax baraanna haddaa fiirsato jaamacadaha dadka wax ka dhiga ragga u badan dugsiyada sare ragga wax ka dhiga ragga u badan arrintaas marka ma iyaga iska reebay dabcan haddii gabar la helo si fiican wax u bari karta iskoolaadka iyo jaamacadahaba way jiraan kuwa dhiga wax ka maanici kara inay wax baraan iyagu dumarka ma jirto dabcan wayna yar yihiin arrintaas marka daraasad kale u baahanta waa gartay ma jiraan shaqooyin dumarku aysan qaban halka wax ka muuqata raggu inay shaqo walba qaban karaan laakiin dumarka kuwa aysan isku badayin oo raggu qabtaan ma jirtaa waa jiraan tusaale guryaha marka la dhisayo dhagaxyada culculus la qaadayo gabar fuundiya arki maysid ama gabar shubabka iyo waxyaalaha adag culus samaynaysa arki maysid gabar gaari xamuulo weyn wada arki maysid gabar xamaal waxyaalahan raashinka iyo waxyaalaha dekada laga qaado la soo dejiyo gabar dhabarka saarsanaysa arki maysid mana qaadi karto waa shaqo aysan qaban karin culculus oo dhan oo aysan iyadu u saamaxaynin awoodeedii aysan lahayn marka taas iyadu rag bay u qaad waa gartay marka waxaad leedahay guud ahaanba shaqooyinka iyo fursadaha dhinaca ganacsiga waxbarashada caafimaadka 20 sano ka hor ilaa iyo hadda markii aad isu eegto kee ayay baahsan yihiin fursaduhu ay dhalinyaradu helayaan rag iyo dumar horta waxaa jira gaab barigii dawladdu burburtay iyo dib u soo noolaansho dambe oo waxbarashadu marbayba hawada ka baxday dawladda hadday dhacday iskoolaadka waa wada xirmeen shaqooyinkii dawladda loo hayn jiray oo dhan way xirmeen waxyaabaalo badan baa burburay dabadeed maamullo dambe oo la samaystay waxyaalo dambe waxay dib u soo nooleeyeen in waxbarashadii dib u soo noolaato in shaqooyinkii dawladda qayb dib u soo noolaadaan waxyaabalahaasi marka oo dhan markaa waxay fursadihii bay dib mar labaad u soo celiyeen sidaa darteed haddana waxaa moodaa shirkado ganacsi oo waaweyn baa samaysmay shirkadahaas waxay keenayeen in shaqooyin ka dhex abuurmaan
kambaniyo waaweyn oo kale iyaguna oo isgaarsiina ama xawaalado ama waxyaalo badan baa samaysmay waxaasoo dhan iyagana waxaa ka hoos abuurmay shaqooyinkaasina waa shaqooyin si caam ah dadku ay ugu siman yihiin ma moodaa dadku marka inay xadaarad iyo ilbaxnimo ay ka dhaxleen ganacsigan xorta waxbarashada xorta oo aad moodo rag iyo dumar inay si siman shaqooyinku u helaan waxyaalahan dambe waxaa laga dhaxlay oo de waxbarasho mar walbaba ama lacag ka bixi ama bilaash ku hel kulay mar walbaba xadaarada ay qayb ka tahay in wax la barto ganacsiguna waa ganacsi furfurmay oo hadda sida aad aragto ganacsiyada sidii berigii hore maalan hadda markii berigii hore hilibka oo kale markaan soo qaadno waxaa laga yaabaa in meelo xadidan hilibka lagu gadi jiray waxaa laga yaabaa kambaniyada importiga kuwa xadidan ay ahaayeen isgaarsiintu inay xadidnaayeen oo iyagana ay dowladaba gacanta ugu jireen marka furfurnaanta faraha badan waxay keenaysaa xadaarad badan inay jirto bay keenaysaa waa mahadsantahay